muwaadiniintan Soomaaliyeed ee dawladdu ka soo badbaadisay dhibaatadii ku haysatay xabsiyo ku yaala dalka Liibiya ayaa waxaa maanta xafiiskiisa kulan qadaha ugu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. kulanka ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ergeyga dawladda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo gudoomiyaha guddiga barakacayaasha qaranka ayuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu gol lahaa inuu ku dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga soo badbaadiyay dhibaatadii ku haystay wadanka Liibiya isla markaana uu dareensiin lahaa dareenka dawladnimo ee ku aadan siday ugu faraxsan tahay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay dhalinyaradaasi ayaa u ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay ku garab siinayso muwaadiniinta sidii u heli lahaayeen waxbarasho, caafimaad iyo shaqo. taa ay ugu farxeen dhalinyaradii ka qayb gashay kulankaasi. waa kan Maxamed Cabdiraxmaan oo kamid ah muwaadiniintii laga soo badbaadiyay xabsiga Liibiya. wax qabad kasta intaan wuxuu noo sheegay wasaaraha oo dhankeeya aan ka xabananay haddana dhalinyarada Soomaaliyeed intaan isbeddelka raadinaysay inuu wasaaraha wax kasta nagu soo dhaweyn doono xabashadeeda xagga waxbarashada xagga jaamacadda iyo xagga intaan dhaqaalaha inay naga caawin doonaan. waxaa wuxuu wasaaraha noo sheegay ummad qof kasta noo sheegay qof kasta dhalinyarada Soomaaliyeed hadduu soo laabto in dawladda ay garab siin doonto, inay dawladda caawin doonto, inay dawladda isbeddel weyn ku samayn doonto. annaga sida ogtiin sidaan dalka ugu soo laabanayba waxaan macnaha helnay fursad aad u qiimo badan ummadda kale aan helin baan helnay. dawladdan sanadkan jirto dawlad power iyo awood leh, dawladdan ummadda Soomaaliyeed garab weyn siinayso. dawladda Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixinaysa sidii ay xabsida dalka Liibiya iyo magafayaasha arxanka daran uga soo badbaadin lahayd shacabkeeda iyadoo ay 11 qof ay yihiin kuwa ugu horeeyay ay ku guuleysatay soo badbaadintooda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.